wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska iyo bulshada iyo waliba gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer ayaa maanta xadhiga ka jaray xarun cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer. munaasabadda xadhiga lagaga jaray xaruntan cusub oo ay si rasmi ah ugu hawlgali doonto wasaaradda qoysku ayaa waxaa maanta goobjoog ka ah wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska, madaxda deegaanka ee degmada Burco iyo waliba madaxda wasaaradaha ee gobolka Togdheer. wasiirkan wasaaradda arrimaha qoyska Maxamuud Axmed Barre Garaad oo saaka ka hadlayay munaasabadii xadhiga lagaga jaray xaruntaasi ayaa waxa uu sheegay in dhismahan uu ka mid yahay ilaa iyo 4 dhismo ay wasaaraddiisu ka hirgelinayso gobolada dalka. isla markaana waxa uu warkiisa ku xuseynay maalgelinta xaruntani ay lahaayeen hay'ad kaalmada Mareykanka ee USAID, isla markaana ay fulinayso hay'adda IOM. wasiirkan wasaaradda arrimaha qoyska ayaa waxa kale oo jawaab ka bixiyay hadal uu sheegay inuu ka soo yeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdilaahi Abubakar Cusmaan, kaasi oo sheegay inuu ku muday dhaqanka bulshada gobolka Awdal maruu ka hadlayay munaasabadii xil wareejinta ee badhasaabada gobolka Togdheer. wasiirkan arrimaha qoyska isagoo arintaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxay jecelahay ree Awdal ma hadda niyad wax ku haysta wadad maskax furan wadad saraxada sheega waxa sheegaya taariikh ahaan Awdal Burco iyo Boorame waxyaabaha ay wadaagaan intii ku dhawaaqday dib u soo noqoshada odayaashii Boorame ka yidaahay meeshii lagu dhisay dawladda horeysay ee Soomaaliland ما ضعنا حكومة وزارة وحكومتي حفيز قريب من دون هرمر يشغل وزارة. sidoo kalena gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdulaahi Xamarji ayaa isaguna waxa uu xariiq jaristana uu ku sheegay inay tahay midii labaad ee uu la kowsaday tan iyo intii uu la wareegay xilka maamul ee gobolka Togdheer. xaruntan wasaaradda qoyska oo ka kooban dhismayn ballaaran oo isugu jira xafiisyo iyo bogcado adeeg ayaa waxay noqon doontaa midii labaad ee wasaaradda la dhexe ee gobolka Togdheer ay xadhiga laga jaro, iyadoo maalintii shalay si rasmi ah loo furay xarunta wasaaradda maaliyaddu ay ku leedahay tuulada Beer, kuwaas oo qayb ka maalgelin ay hay'adda kaalmada Mareykanka ee USAID ay ugu deeqday dawladda Somaliland. Yuusuf Ibraahim Warsame, TV-ga qaranka, Burco.